بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa walaashin iska kitchen oo idile kusoo dhawaada channelkiina maanta waxaa inoo bilaabmay sanad cusub waxaan rajeynayaa ilaahay inuu sanad kheyr qabo noogu wada dhigo dhammaan maanta waxaan kusoo dhaweynay sanadkan doolshadan aad u fudud oo aad u macaan waxaan ka sameeyay doolshadan karooto waxaan ku qurxiyay kareem iyo qumbo haddaad jeceshahay doolshadaneyti inaad sii ogaatid sidaa u sameeyay ila soco videoga ilaa dhammaadkiisa insha allah daawasho wanaagsan inta qaleelkan ku isku qasaynaa waxaa u baahan tahay hal koob iyo bar oo bur ah hal qaando iyo bar oo baking powder ah waxaa kaloo u baahan tahay hal qaando yar oo baking soda ah nus qaando cusbo ah hal qaando yar oo qarfo shiidan ah rubac qaando sanjabiil shiidan ah waxaan ku darsanoo kale rubac koob oo sabiib ah sabiibka haddii aad jecleen waa iska day kartaa rubac koob oo qumbo shiidan ayaan ku darsaday hadda waxaan qasaynaa inta qoyaanka ah waxaa u baahan tahay rubac koob sokor cad ah iyo rubac koob sokorta madow ama brown sugarka nus koob saliid cadeey ah ayaan isticmaalaynaa 2 ukun ayay u baahan tahay hal qaando yar carfisa ah intaas si fiican iskugu walaaq waxaa kaloo u baahan tahay hal koob iyo bar karooto la soo xoqay iyo nus koob cananaas shiidan ah intaas si fiican isku dhex geli inta qaleelka ayaan ku darsanayaa burkii iyo isku soo daray si fiican isku dhex gelina insha allah waa idinkoo arkaysaan xoogaa inay dheg tahay u malaysaa dhegan tahay laakiinse si fiican markay isku dhex galaan inay okay tahay dareemaysaa waxaan keensanaynaa geedka ovenka la gelin lahay formka dooshadeena ku tirsanaynaa waxaan isticmaalayaa form oo 20 centimeter ah waxaan ku dubaa insha allah foorno la sii kululeeyay 45 daqiiqo ah waatana maasha allah way noo soo baxday doolshadeena markii qabowdo waan ka furaynaa ovenka geedkiisa xashadana waxaa ugu dhigsaday sidii igaaga dhigin waa kana maasha allah doolshadeena diyaar waaye sida jeceshaa u qurxiso kartaa haddii aad rabtid inaad ogaatid saan u qurxiyay doolshadan ee san igugu soo baxday iga sug videoga ku xiga insha allah ayaan soo geli doonaa sidaan u sameeyay waxaan rajeynayaa inaad ka wada heshaan videogan haddii aad video ka hesho please thumbs up likes and comment hoos igugu soo qor
ra'yigaada kasoo dhiibo insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.